السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشير جرايد يو مختار أو إن شاء الله مركن وربنا بعديها هي وركي تضبط كان وياه مركا كل بيسوي قاري عطياتنا دين بدن أو إلهي نحرسته سلطان كجود بشي ساق سلطان عبد القادر سلطان عبد الله وكجوري هذا مقادير هرجيسة إلهي نحرسته سمرية ما نقصي أهل كيسة يا قرابة ديسة يدد كيسة با إلهي نحرسته نين عطيات في عنبوها نين أقون له علمي دين wax walba lahaa buu ahaa waa nin u dadaali jiray nabadda oo mar walba ka shaqeyn jiray nabadda oo si walba isku dayi jiray inuu nabadina meel walba ka jirto geed walba u fuli jiray walba u fuli jiray soo nabadan uga shaqeeyo oo xaliyo khilaafaadka ka jirta meesha oo dhan oo mar walba waxaa ninka ugu horeeya ka jiray oo dadka safka ugu horeeya ayuu ahaan jiray ilaahay u naxariisto samir iimaanna ilaahay ka siiyo marka warkii baa diigali doonaa insha Allah oo warka waxa weeye dad garanaysan kullayba waxa weeye 8 Febraayo oo ka dhamaatay muddadii ka dhamaatay farmaajo madaxweyne farmaajo markaana xalay kullayba inuu madaxweynaha sii ahaado weeye sababta ma dhici karto dal bila madaxweynaha Soomaaliya oo ogtihiin inay bila madaxweynaha to ma habade ani minute sababta madaxweynaha loo baahan mar walba inuu joogo meesha oo hayo oo maamulo meesha markaana xalay dadka ka soo horjeeda lama kordhin karo madaxweynihii hore weeye taas waa khalad aad iyo aad khalad u tahay aniga sidaan u arkayo oo aaminsanahay sababtoo ah dal bila madaxweyne ma dhici karo ilaa madaxweyne wax bedeli kara madaxweyne la doortay marka ina qof loo dhiibo la yiraahdo qofkan baa sii waday qofka kale sii wada doonaya baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka inuu sii qabto meesha waa aad iyo aad khalad tahay nabadda laga shaqeeyo dad waaya arag baan nahay experience le oo og dagaalku wuxuu yahay ma aha dad maanta ka soo toosay nabad oo ogeen sadalka kale adduunka kale oo mid walba og yahay isleeyahay dhibaato maan aragba hadda aan aragno aan tijaabino ma hayna noqono waa dad bislaaday baan nahay dalkeena Itoobiya oo arkay dadka waxa ka dhacay hadda doorashada dib loo dhigay buuqaas oo ka dhacay oo tigreegi kaceen oo dhibaatadan ka dhacday adduunka isku yimaadeen oo dagaalkaas aad iyo aad u xun yahay markaan wuxuu leeyahay taa laga feeg jognaado oo yaa lagu degdegin sababtoo ah waa khalad anu dad baa maqlay leh ina koob 9 lagu noqdo koob 9 lagu noqonay taas waa habaar aad iyo aad u xun deex koleeyba wad garanaysan أنا أحسن dadkaas kale mas'uuliyad dad mas'uuliyiin ma habelay koob 9 baa lagu noqonaya oo dadka loo sameeyo waa habaar waa inaad maxkamad la hor keeno oo la weydiiyo sababta ay oranayaan hadalka koob 9 ku soo celinayaan waa khalad aad iyo aad oo wax la ogolaan karo maaha marka khudbadii farmaajo waan dhageystay khudbad aad fiican bay ahayd si wacan buu bilaabay iskooleyba khaladaad badan baa ku arkay sababtoo waxa weeye tanaasul madaxweyne dalkii loo doortay baa ahaa waa inuu awoodiisa inuu isticmaalo weeyo oo yiraahdo amarkan oo dhan iyo waxaan laga wada hadlayo inuu dejiyo bay ahayd oo yiraahdo amarku aan qaato ma aha inuu ka soo baxo yiraahdo dani baa qoray xeerkii doorashooyinkii arrimahan oo sameeyay oo kaligii baa qoray uu ogaa taas ma inuu ku marmarsadan yiraahdo maamulka goboleedyada Puntland iyo Jubaland baa ka soo horjeestay oo intaas oo dhan oo soo qortay markaa soo qoranayaan ilaa umrigooda dhan soo qoranayaan mar hadaan leedahay soo qoranayaan haddana marka la dadka soo qorteen oo way diideen oo wixii baan u yeelay oo waliba way diideen taas khalad ah marka aniga waxa leeyahay kullayba haduu sax yahay kullayba ma garanayaan shan maamulka Puntland way dafreen kullayba afkiis kama oran basta kullayba waxa la wasiir Puntland hadlay oo sheegay oo yiri anigu mas'uul waxa la sheegay oo dhan waa iska khalad marka inta aan baa lahaa iskoolay khudbadiisa wuxuu ku bilaabay horta baarlamaankii uu sheegay ku yiri madaxleedkii uu dhamaaday oo anigu waa dib ballan qaaday inay ilaa xildhibaano la doortay meesha la qaadin kara sideen haysataan taasna waxay ahayd qaab of shukaansi oo lagu deeyay baarlamaankii loo sheegay leeyahay kubadda sideedoo kala tihiintee waxba maaha markaan waxa leeyahay ina loo daayo farmaajo weeye isaga madaxweyne noqonaya bas doorashadiina la dejiyo weeye haddii loo kordhinayno sanad iyo 2 sanadood maximum 2 sanadood aad iyo aad badan tahay marka la dejiyo kullayba Soomaaliduna waan ogahay mid kaliyaan ogahay oo aan aaminsanahay intii 4 sanadood mise 5 sanadood ugu dambeysay madaxweyne ku soo noqday ma jirin madaxweynihii waa la bedelaa Soomaaliduna sideedu waxay jecel yihiin qof cusub mar walba oo isla wax badan bedeli doona anigu qodobada ugu horeeyay waxay madaxweyne walba dooranay waa inuu waxa hamigiisa ugu weyn inuu saaro dhinac kale yahay waa dhinaca amaanka hada amaanka la saari waayo marka waa dhibaato anigu arkayba hadda qaraxyaa dhacay dhibaatooyin baa socda intaas oo dhan inta farmaajo joogay amaankii la adkeeyay ahayd iyo arinka labo waxa ka hadlaya labada maamul
goboleed ee meesha maamulaya bade ayaga awood ugu badan leeba meesha oo hadda sharciga soo qoraya bade maamul goboleedyada kale waxba de kulay bade awood ma laho dad kasoo horjeeda farmaajo sidaa uma aha marka labadaas dhibaatada oo dhan keenaya oo dhibaatada intaas ku tahay marka inta kale soo galay warkii labaad waxa weeye inta ka hadlayna waxa weeye 27kii ayaa xildhibaanada inay dhamaato heed la doorto xildhibaan cusub oo lama dooran taasna khalad kale bay ahayd xildhibaanada inay sii joogaan bay ahayd doorashadii inay dhacday bay ahayd doorashadii hal cod iyo hal qof iyo hal cod inay haato bay ahayd taasna way dhacweeday baarlamaanka dib lagu soo noqonaya baarlamaankii unba awood leh inuu dadkan kala saaro oo madaxweyne cusub u doorto marka xagga kalena ku soo noqonaya waxa weeye dagaalkii Ethiopia oo iyo Suudaan oo meel xun maraya ciidamo badan baa ku dhintay wax walba la adeegsaday dayuurado baa hadda duulay cirka oo meel walba gubaya oo dad badan baa ku dhintay labada dhinacba ka dhintay bas kale guusha hadda waxay raacsan tahay baa leeyahay dalka Suudaan oo waxay isticmaalayeen diyaaradihii droonka ahaa ee casriga ahaa ee wateen ciidamada Turkiga oo heshiis bay ka gaareen inay arrinkaas sameeyaan oo taasna way dhici doontaa oo la isku raaci doonaa kale Ethiopia iyo Suudaan baa guuleysanaysa anu isleeyahay sababta waxa weeye labada dhinacba dhibaato ka socda Tigray waxaan kala dagaalamaya buuq baa ka jira xaqii Oromadana dhibaato weyn baa ka jirta sababta waxa weeye qolo siyaasiyiin ayaa la xiray oo meesha lagu xiray qolooyinka siyaasiyiinta lagu xiray meeshii cunto joojin bay bilaabeen hadda waxa weeye ilaa 12 cisho waxba ma cuneen waxa la siiyaa fale cuntada biyaha la siiyaa glucose iyo wax baa lagu nafaqeeyaa si u dhiman marka barnaamijyo weyn baa ka socda gobolka Oromiya oo dhibaato weyn baa ka taagan khudbadii uu jeediyay oo hadalku uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee maamulka Soomaalida ee kilka shanaad kale mist oo sheegay oo hanjabaad u diray ku lahaa meeshii aad joogteen oo ku celinaya hadaad sameeyeen wasiir maaliyadda siiyay maxaa doonaysaa inta ka badan taasna waxa arkay qadaf inuu haayo wax khalad ah inuu waxa ku hadlo Soomaalida kilka shanaad inuu sababtoo dalka meesha kaliya degan ay ku kicin maamulkiisa iyo arrimahaas oo dhan maaha dadka soo horjeeda nabadda ka shaqeynayaan ayaga dhibaatooyinka imanaysa xagga afarta laga soo weeraray mar walba oo afarta soo weeraray oo soo galayaan gobolada city oo soo galayaan dad kaleynayaan oo dib u noqonayaan oo ma la garanay xaga ka soo socdaan hadda kalena waxa sheegay dhibaatadii weerarada waxa ka dhacday xagga Tigray marka soo galeen meeshii ma waxa sheegay qoladii Eritrea way yimaadeen oo Ethiopiaanka soo caawinay ninkan siyaasad farqi waa nin halis ah aad iyo aad u halis ah oo siyaasadda deegaanka Afrika oo dhan halis ku ah sababtoo wuxuu sameeyay dhul baa la isku haystay dhulka Ethiopia markii la isku haystay Abiy Ahmed baa ogolaaday wuxuu yiri dhulka isku haysanay iska qaatay Nobel Peace Prize baa lagu siiyay markuu siiyay haddana markii dambe Tigray dagaalka bilaabmay uu soo galay xuloo ka caawinay uu soo galay hadda xululay calaamaadii Tigray Eritrea ay ka taagan meeshii dadkii baa lagu sheegay lagu leeyahay hadda qaado sharcigii mustawqiya mise waxaad qaataa bahalkii qaata oo waxa la siinaya sharciga hadii kala dhulka dib dambe kuma soo noqonaysaan dhulka wuxuu noqonayaa dhul Eritrea leedahay marka calankoodii bay ka taageen caashuur bay dadkii ka qaadayaan waad ogtahay marka ninkan wuxuu ka bilaabay dhul baa la siiyay dhulkii kuma qancin hadda uu soo baxay dib dambe wuxuu yiri waa ku caawinay markuu caawinay hadana Tigray buu qayb ka qaatay calankiisii buu ka taagay hawshiisii oo dhan ka wada ee qalalaasuu ka wada meeshii iyo dhibaato weyn dhibaatada xagaas ka dhacday marka haddana caashuur buu ka qaaday dadkii waxa leeyahay haddana xalay qaxoonti badan oo aad iyo aad u badan oo gaaraya ilaa 200,000 lagu leeyahay oo Eritrean ah oo soo qaxay gobolka Tigray oo joogay xagga ayaa la waaysan yahay hadda United Nations ka shaqeynay xalayeen xagee tageen marka khasab baa lagu celiyay Eritrea lagu celiyay aaminsan way dhacday qaab laga dilay waxay doonayaan oo dhici karaan dhibaato weyn baa xaga ka taagan oo la arkayo marka anagu waxa leeyahay nabadeena ha alaashano madaxweynaha farmaajo loo daayo sanada loo kordhiyo inta doorashada dib u dhici doonto marka haddana waxa leeyahay shir baa lagu bayaamiyay oo leeyahay garow waa laga dhigi doonaa mise Muqdisho anigu kale waxa aaminsanay waxa fiican in Muqdisho laga dhigo sababta Muqdisho inay noqoto way xaruntii oo laga maamulay meesha oo qofna waraaqo la galin oo meel
arimo kala sameynin intaasun bay ahayd arrimadeeda insha allah dee khayr baa iska ognahay iyo kulanti dambe inta qaybta ugu dambeysana war baa idii hayay aad iyo aad u fiican oo anigu dee kolleyba nin investment advice bixin kara ma ihi masalan kolleyba war baan ogaaday oo hadda 2 bilood aan ku jiray oo lacagteedii aan geliyey oo dee lacag yar baan geliyey kolleyba intii bilowga oo kala soo baxay markii dambena waxa gashtay 90 gini baa noqday 250 markay noqotayna 105 baa ku darsay haddana dee 295 baa geliyey haddana waxay maraysaa 500 iyo dheeraad ay maraysa 500 iyo dheeraad ay maraysa marka wadii sheegay waxaan ku leeyahay taasna insha Allah wadii sheegay comment-ka xaga hoose ku qoran insha Allah dad doonaysan ku warhaysaan kuleyba wax fiican weeye investment-kii weeye oo dadku qof walba meel buu lacagta gashtaa marka anigu waxaan aaminsan aniga tijaabo soo martay weeye marka mid doonayeen xaasid noqdo waxa doonayeen la qaybsataan oo meel ka gaarna sababtoo waxaan arkay Soomaalida unba ka maqan oo Soomaalida ay ka maqan waa lagu dhacay dhowr jeer meelo badan bay galeen oo khalada maanta waxa tii saxda ah insha Allah noo sheegi doona qof doonaya insha Allah comment-ka below ay ugu soo qoro ma salaama ishir jiray dambe